وكاسي طلبات وعوي هيستوريكالي كرتون وقفت مرة هذا لما صعون لكن مقع شيخ حسن أيام قرتي وعن أبيه البرقرتي شيخ آدم ونكسر وذلك يقول بكل أسبوعها يبدأ يشغل واحد من الرجالنا إذا شكرا mother. Kalku marka aad baan ugu xumahay dumarku lafteedii oo dad bulshada magaalada dowladda soo dhaweysay wuxuu baan laga qabeen noqday dadkuna runtii la ibeytirsadeen oo way naga yarbaxeen kaltuun waa inan u qalanta intan iyo in ka badan ba gebiga inay kala ugu soo baxdo kaltuun waxay ahayd gabadh in aqoonteedu ay gaarsiisay inay noqoto madaxda sare oo markii horena ka mid ahayd madaxda magaala markii dambana ka mid ahayd aniga iyaduma aanu ku wada jirnay ururka horumarinta gobolka aqoonyahankii loo soo doortay ay ku jirtay kaltuun alxamdulilah haddana halkii kor u kacday oo ay qabatay mas-uuliyadda maanta loo magacaabay horta marka u horeysa aad iyo aad aniga oo ku hadlaya magaca ururada bulshada ee gobolka Gabiley oo dhan degmo iyo gobol iyo tuulada waxaan kugu hambaleynaynaa oo hambaliyo aad iyo aad u qiimo badan aan kugu soo jeedinaynaa heerka aad taagtay iyo madaxnimada noqotay heerka komishineerka waxaan ku leenahay insha allahu tacaala ilaahay halkaa sii wado darajo sareysa oo aad iyo aad u fiican magaca ururada bulshada gaar ahaan ku hadlaya magaca haweenka waxa weeye fariiman haya aan farayo kaltuun marka u horeysa waxaan ka faa'iideysanayaa inaan u diro dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo iyo marwadiisa koowaad maxay Aamina Sheekh Xasan Jirde Aamina Sheekh Xasan Jirde waxaan leeyahay anagu maanta haddaan nahay gobolkii Gabiley ama ana haween oo dhan u hadlaya waxaan leenahay maadaama ay gabadhaasna maanta gashay anagu tuulooyinkii iyo degmooyinkii kale waxaan diyaar u nahay in gabdhaha lagu soo daro hankooda diyaar u nahay komishinka qaranka ee degmooyinka anigoo la hadlaya gudoomiyaha komishinka qaranka waxaan leenahay haddaanu nahay gaar ahaan gobolkii Gabiley waxaan idinka fadhinaa oon doonaynaa in xubintayada nalaga siiyo haweenka marka lasoo dooranayo xubnaha gobolka Gabiley ragga xubin dumarkaan lagu soo daro wakiilada iyo golaha guurtidada waxaan doonaynaa anagu haddaan dumarka inay xaqa aan u leenahay in nala siiyo oo komishinka maanta dhacaya gobolada inta kale oo dhan xubintii dumarka inay ka muuqato maantana xil kasii xoogga baa gashay insha allahu tacaala ilaahay ha kaa dhigo xubinta ku shaqaysa cadli ee u sugnaadaan gobolada Somaliland oo dhan iyo caraduba saacadna waa saacad oo waa xilli dambe ururada bulshada cid walba ku jirta xitaa xisbiyada mucaaradka ku jira maadaama ay tahay commission waa dhex kaltuun waxay dhex tahay saddex xisbi qaran iyo dadka kala taageero u dhex tahay kaltuun waxaan sheegaynaa cidda soo dhaweysay inaan ahaynu ama kulmiya ama xukuumadda ay tahay saddexda xisbi qaran oo halkaa waxa fadhiya aad wadaadkasaan iidoo inala fadhiya wadani ka socda dad badan ina xagga fadhiyaan markaa kaltuun waxaa leenahay xifladeeda dadka afbulshada inta jira waxaan u sheegaynaa inay dadkii u wada leeyihiin aynahayn cid gaar oo soo dhawaysa dhow ma mataqaana ay la iman kaltuun maanta maamul loo dhigo uma horeyso kaltuun waxay soo ahaan jirtay magaala sanadii magaalada mareelada garnasland 5 sano iyo sayidii maamul soo hayn mataqaana ay kaltuun looga cashan maayo maanta loo dhigay
ويا مكفر أنا هي هاكل لا بس رئيس قالوا ومتفق عليه رئيس قالوا ثم كريك بدي أمر قبل كلام علينا يا فهم أبوي بيقولوا لي ما في فرصة للسدين خلطوا لي السدة أو مثلا تاني بقى ده اليوم أوشن هلكن نقول يبقى واحد أنا قرص حنسنا هو كل شيء جوا عليه كم معي صافي له كل شيء يعني قبل عاوز يقول سامي اللي كان موجود ده كان طولنا هواك ما يتبي كانت اليوم عمر يوم طولنا نفس الوين سنة هواك مرور بيا ليلون باي أنا وكيس بيها كطول عمر كنا نتاكل تاي كل شيء يقولوا إحنا نقطة هنا كل شيء يعني عدالة يلو البلد والرشة كل كتاب كل على تاي كل شيء بيسوق أنا ليه أنا نقول لكم شيء قرأك إن أنا تكنو ما دام نقول لكم اللي تقولوا حسبي بدنا نقول كم هو فائدة فريد أو فريد أنا يقعدوا كوميشن مركب وصمين يو قبلنا ده يجي المويك وكسرنا يو إن كنا نجوعان كوميشن كان إمكاني الحين كله اللي تكوه هو عقوبة باي أو كوميشن كان تبغى أوصل لنا نقول له هيك بليه شاعرنا ينقصين كوميشن ده أسباب رجعي بعدين طلبنا القصة إنه ما دام شيء تبغى اسمه كان بين حسبين اللي بتجيبني كوميشن ما كان دورنا يدحر قف عن حسب بتجيبني وأنا أبتسمت حسب عين هيا الله العابة والله ده يدك بوي كنا كم نعلم مرجع عندي سير شغالين تأثيران شغلوا سيد رسالة إن هي صح هذا يصير فينا وعلى كيف توتاني مرنّا حق حسبية ده وذاك مدان قاطع تندت كم تصنع حسبية وعايدين في عنا الجمهور دي يقولون كده وبحنا تحفر ستان صدق الحسبية فرتان ضم يعني حسبية كتير ولا الحالة نصوم العمل تازو فريق المطور فريق أنا بالموضوع عنتها هنا كراسة من قبله هو يقولون إنه قاعد سمان سولوين تسعة حسب الأربعة يكون كل الجولان مع ولا الفريا شغال وشباب عروس شباب أباهن ونقولون إنه ما كان أبو ماها شباب حسب جيب وقولون يعني محمود ومن ماها وشباب كلنا إله يقولوا عدالة الشباب ده الأولياء هاي كتاب ناس عن مذوقياني فأنا بفكر على قبتها ليه نور هذا الجوتة هو هم تير هذا أنا أقول واحد يقول أنا مرة بعد مرة تعرف شو هو قبل كده حصل عندكم مضاعف وحلاي هاي كسر الوالد قبل كذي وحرمت السلام يا سلام الإسلام كان قالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة السلام يا مضح بشرف طريق قبل كذي يدعوين كقبلك سؤال وياي كرتون شيخ حسن عبد مضر يوفي جلس والله مضح ناصر يسوي كتاب عقاشي قبلك مضح دي دولة هوسة ماير بحجينك دمر كشرف تاني يقول بيجيبلي يسوي في عمل سؤال وياي يجروا حب الصلاة يجروا حب الصلاة السلام يا صلاة الإسلام كان قالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي كسر قبل كاجي أظن أطي أو كمفرم يقط فرم كسر الوجه مرة بعدي مرة تحدي مرة كسر الوجه أنت كبعدي كل اللي مخطوط له كهبي هاي أنا واحد كورنا يا تحكي عن قصة دمرك كل وين صفر النبض وين يسحب بينه خطو دمرك حد يشاور يسار أو ده واحد على صفر بواحد مساينه وحيو لهم سيا تهمت مساعي جاي ولا جاي حتى أنا لكن سؤال يجيب بينه ولا جاي كنا ولا نافك كنا ولا نوي دلالة حاجة عباس ولا جاي كنا ولا نافك كنا مركب واحد كان يا تيجي ركان لسه دمرك هواكوا صديو ويقلبوا مصدر هواكوا هذا نجرين هوي لما يلين هواكوا هذا نجرين هوي لما نستين فريد لابو فناو في علما دارين دبتايكو دستيكو نجساوي
markii rabbi umayeeda laga kumay xawa laga jeexaye fedha bidixu jaray ayaa laysku dhabayo laysku dheeli tiray oo waysku dhaqan waysku dheersayin taniyo ambi